Habeen wanaagsan soo dhawaada akhyaaray kulan kale oo xiiso badan oo muuqaaladii aan uga hadli jirnay caafimaadka iyo cilmu nafsiga. Muuqaalka caawana wuxuu ku xiriirsan yahay muuqaaladii aan soo wadnay oo cilmu nafsiga u hadlaynay gaar ahaanna muuqaalka wuxuu toos ula xiriiraa muuqaalkan kii ka horeeyay oo aan uga soo hadalnay caqli dareemaadka sida ay dadka u kala duwan yihiin waxyaalaha ku keena inuu qofka caqli dareemaadkiisa uu heer sareeyo. Marka loo eego caqliga kale oo hore aan loo yaqiinay oo ah macnaha inuu qofka garaadkiisa uu caadi yahay uu wax baran karo wax soo saarkiisa uu wax soo samayn karo oo maskaxdiisa ay kobceedu fiican yahay garashadiisa uu fiican tahay laakiin waxaa jira caqli dareemaad ka duwan kaas oo midkii IQ-ga la yaqaan ma kii kale ah muuqaalkaas ayaan uga hadalnay videogaas macnaha mowduucaas uga soo hadalnay marka waxaan rabaa inaan ka hadlo hadda oon ku xiriiriyo shakhsiyaad laba ah oo macnaha laba daraf oo kala duwan jirooga tilmaamna ka bixinaya inaysan macnaha aysan ku ahayn tusaalena u noqonaysa inuu qof meelahaas inaysan caqli dareemaadkiisa aysan fiicnayn midka koowaad waxa weeye dadka sida inta badan caqlaaniga la yiraahdo ama caqliga un ka fakara oo tafkiirkooda uu yahay inay natiijo ka fakaraan waxyaalo oo ijtimaaciyada ka fakaraan bulsho ah waxyaalo ay ka fakaraan social ah waxa ay ku xiriirsan dhacdo kasta ay macnaha si miisaankooda ay ku saaraan si caqli ah taas waa mid laakiin oo ka fog inaysan dareemayaasha aysan isticmaalin oo dareemayaasha ay inkiraan dadkaas marka waxa weeye waa qaybta kale waxa weeye iyadana dadka inta badan caadifada ay ka qaalib noqoto inuu caqligiisa u adeegsado caqligiisa uu daboolmo markuu caqligiisa daboolmo caadifadiisa ayaa shaqeynaysa marka مثلا hadduu xanaaqiisa waxana yani waxay noqonaysaa inuu fuliyo مثلا waa dad aad u xasaasiyad badan leh oo macnaha caadifadoodana adeegsado inta badan waa maqashay in la yiraahdo macnaha hebel waa caadifad hadlay macnaheedu waxa weeye qofkan aqliyadiis qaybtii caqliga oo la rabay inuu si mantiqi ah u fakarana ayuu siixiyay marka qadiyada aan rabo inaan baraarujiyo waxa weeye labadan oo daraf oo geesaha xiga waxa u dhaxeeya meel dhexe oo ah in labadiiba aad isla adeegsato oo si isku dheeli tirnaan leh inaad u noqoto qof caqlaani ah oo mantiqiyada ka fakara natiijooyinka ka fakara waxyaalaha xaasilka ka imaanaya waxaan hadda sameysay ka fakara dhinaca kalena ay barbar socoto inuu caadifadiisana uu ay macnaha waxyaalo badan ay ku dhex jiraan oo san caadifadii uusan iska riixin iyo inuu macnaha qofkaas laxawii laga rabay oo kale inuusan lahayn haddii مثلا marka ay labadaasi macnaha ay dadka ku kala dad qaybtood ay kala yeeshaan labadaas qanadood waxaa la rabo waxa weeye marka inuu qofkana uu soo dhawaado macnaha kasbadaan inay caqli dareemaadkooda hagaajiyaan si ay guusha oo saameyn ku leh arrintan oo haddii caqli dareemaadkaaga ama emotional intelligence-ga uu sareeyo macnaheedu waxa weeye waxaa guusha inaad gaartay macnaha guul ay qofkaas dadkaasi inta badan successful bay noqdaan waa dad ka guuleysta laakiin haddii aad si cagsiga noqotona yani adiga dhibaato kugu soo noqota ay noqonaysaa waxaan rabaa marka intaan videoga ila fogaan inaan macnaha tusaale yar idin siiyo oo مثلا dadka caadifada adeegsada waa dadka marka مثلا caroodaan oo kale ama wax ay jeclaadaan oo kale waxa kale oo dhan iska inkira macnaha qof meel u muuqato meel ka qarsoon oo kale macnaha sheekadii ahayd aan wax kale u muuqanaynin caqliyadoodii iyo macnaha inay soo xaadiriyaan oo ay soo muujiyaan aysan ku adag tahay halka qolada kale iyadana ay ku adag tahay inay macnaha ay caadifada adeegsadaan tusaale waxaa ku soo qaadan karnaa qof maamula meel ka ah ayaa qof ka xanuunsaday hooyadii oo kale مثلا xanuunsaday wuxuu rabaa marka inuu fasax la siiyo
qofkii maamulaha ahaa wuxuu sameynayaa marka مثلا hadduu yahay qof mantiqi ah wuxuu leeyahay maya kuma fasaxayo isagoo ka fekeraya marka wax oo mantiqiya ah oo مثلا inay yaa shaqada booskaaga gelaya waxyaala su'aala cinkaas isagoo isweydiinayo si fikirkiisa macnaha qoladan marka mantiq qolada kale ka soo jeedo oo caadifiintana waxa weeye iyaga haddii caroodaan oo kale natiijada kama fikrayaan waxa soo socda arrintan maxaa ka dambeeya si degdeg ah ayay uga falcelinayaan waxaas waxaa dhici karta marka hawl la hayo dhan inay u fashilanto dartood macnaha fikirkaas iyagoo wax ka yimid inay u fashilanto marka noloshii oo dhan marka ciriiri ku noqonaysa haddii qofkii uu noqdo qof aan isku filnayn oo مثلا ka fikirayn natiijada waxaan uu sameynayo oo kale dhinaca kale waxaa la yiraahdaa iyagana ragga iyo dumarka waxaa la yiraahdaa inta badan dumarka cadifada ku badan raggana aqlaaniyada iyo mantiqiyada ku badan iyadoo ay isku dhex milan yihiin oo dad qaybtooda dhici karta rag dumarka qaybtooda in dhinac kale laga helo laakiin inta badan dumarka saasay u badan yihiin ragguna sidaanay u badan yihiin waa sababta loo yiri marka mas'uuliyadda ha qaadaan ragga oo macnaha natiijo iyo waxay ka fikirayaan iyo waxyaalo kale oo mas'uuliyadda saasay macnaha hormooniskooda iyo qaabka ay u samaysan yihiin ayaa u samaysan inay saa u fikiraan shakhsiyadooda waxaan rajeynayaa muuqaalkan intuu inala dheeran inaan intaa ku joojino muuqaalo kale ayaan insha Allah uga hadli doonaa mawduucaas intaan ku kulmi doono muuqaal kan la mid ah sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh